asalaamu calaykum. waxaa rabaa inaan idinla wadaago arin aan arkay bishaan 13keedii weliba habeen ay ahayd anoo aaday degmada Wadajir laamiga habeennimo 3 saac bar ilaa 4 saac u dhaxaysa waxaa ku soo arkay wadada carwo xiran ama dukaan weyn oo xiran hortiisa weliba jaranjaradiisa waxaa joogeen 4 ruux. 4 qofood waxay kala ahaayeen gabar yar oo da'deeda ah ku qiyaasay 20 sano ilaa 17 sano inta u dhaxayso saddex caruur ah. saddexda caruur dabcan wiilal ay ahaayeen saddexdoodaba da ahaanna 5 sano 3 sano 2 sano saxmala ku kala qiyaasay. arintan xadinta lahaa waxay ahayd familku waxaa ka muuqday famil aanan hooy haysanin inuu yahay. sidoo kale caruurtana waxay jiifeen jaranjarooyinka carwada ay jiifeen. يعني طبعا jaranjarada inta laga deganayo carwada mid jaranjarada ugu hooseysa soo saarnaa ka mid ka sareysan kala mid ka sareyso gabadhina way fadhisay telefoon gacanta ku haysatay dabcan qof hurdoonayo oo laami 3 saac bar ilaa 4 saac habeenimo fadhiyo waxa ku qaya wax yani waxa ku qasbi karo ama waxa ku keeni karo wax yar ma ahan. marka laba arin yani horta qoftaas inay hooy la'aan ahayd way muuqatay laakiinse in ilmahaas aabahood oo dhintay in ilmahaas aabahood oo dayacay arin kaleent in ay haysatay intaba wax yani markaas qiyaasi kara ma ahan mana ii suura gelin in lambar ka soo qorto ama la hadlo ama aweedii sababtoo waa meesha gaadiida saarnaa waa maray aniga sababta marka idin kugu sheegaa waxay tahay yani mar walbo oo dhib ku jirtid waxa jiro qof adig kaasi dhib badan hooyaday mar walba waxay dhigi jirtay qofka ka sareeyo xafiirin qofka ka hooseeyo fiil ana markaas ma fahmi karin hadalkaas laakiin hadda waxa xaqiiqsaday aniga meesha aan taaganahay dib aan ku jiro ama dheef aan ku jiro waxaan ogahay qof aniga iga sii hooseeyo iga xanuun badan iga korbo badan in uu jiro sababta ay kugu soo gudbiyay marka waxay tahay xaalad walba oo ku sugan tahay inaad tiraahdo alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa nimco ilaahay uu ku siiyay. midda labaad gabadhaas aa u duceeyno yani arinteeda ma aqaan waxay ku saabsan tahay laakiin duco oo kaliya nooga baahan tahay saasa idin la soo wadaagay waa mahadsantihiin.